rabaa halka inay idinku soo gudbiyo maanta fikrad aad muhiim ah qof kasta oo hal abuure ah ama hal abuure ganacsi ah yani uu ka faa'iideysan karo insha Allah marka waxaan rajayn doonaa in muuqaalkan uu noqon doono mid informative waxaan marka kuwaas sharaf leh kaaga codsanayaa inaad boga flow ku dhufatid hada YouTube ka daawanaysaa subscribe ku dhufatid muuqaalkana aad la garisid maadaama wax cilmi ah ama maartay dadka anfacaya aan mar walba ku soo gudbino cilmi naafic meesha ku soo gudbino insha Allah waan kaaga mahadcelinaya waqtigeeda qaaliga waxaan rabaa marka khidadan muhiimka in insha Allah aan ku sheego khidadan marka waxa weeye waxay la xiriirtaa yani ganacsiga gaar ahaan iyo businesska iyo qofka hal abuurka ay la xiriirtaa يعني waxaan rabaa inaan ku sharaxo tusaale ahaan waxaad arkaysaa maanta ganacsatadeena ama businesskeena qof waxa uu jooga dad baa u jooga macaamiil baa u imaanaya adeeg bay ka gadanayaan shay buu weydiinaya shaygaas oo intee waa intaas u dhahaya hadduu wax kala damco inuu fiirsho ama shay kala weydiiyo waxa laga yaabaa inuu ku xanaaqabo oo dhaho maxaana naga weydiinaysaa shayga ama waaka ama qofkii isku xanaajiyo waxaad arkaysaa qof wax laga gadanayo qofku wax laga yaabaa pointiye inay ka dhimanaadaan may waa intaa weeye waa shayga salaam waa intee 20 buu dhahayaa wax kale ma ogola war shayga 19 ma haystaa 19 iga si 19.5 iga si yani wax laga yaabo pointiye qofkii inay ka dhimanaadaan $1 1.5 yani qofkii faa'iido ugu jirto ma garad qofku wixii faa'iido ugu jiro waa arrin kale oo macnaha uu ka hadli karo laakiin waxa ka hadlaynaa badanaa ganacsatada yani dhibaatada maartay haysata waxaad arkaysaa dad bicnihii soo fariisanaya meel bay soo fariisanayaan maqaaxiyo kale ama business oo kale meel bay adeeg soo dalbanayaan qofkii maartay wuxuu sheegayaan way la hadlayaan aniga maxaa iga galay buu leeyahay dadkan iyaga u taala ama ha joogan ama ha tagaan buu dhahayaa fikradaha noocaasa marka qofka noocaasa runtii ganacsiga ma fahansana conceptiga marka uu socono waxa weeye haddii aadan dadka fahansanayn ganacsi ma fahmi kadib dadka hadaadan fahansanayn ganacsi ma fahmi kadib ganacsigu wuxuu ka bilowdaa dadka ganacsigu ma wax yani out of nowhere ka shaqeynaya waxa bini aadam oo shaqeynaysa ama clients kuwa ama B2B weeyo ganacsato kala la macaamisha ama B2C weeyo clients caadi ah macaamiil toos oo individual shakhsi ah baa la macaamisha oo wax ka gata ama adeegada ama alaabtaada gata therefore marka waxaad u baahan tahay inaad dadka fahantid baad u baahan tahay marka halkaas ayaa lagu kala hormaray waa sirta yarta meesha ku jirta ganacsada kasta meesha uu dadka ka fahansan yahay baahidooda sida wuxuu rabaan macaamilkooda isbedelkooda waxa ay rabaan waxa ay ka dagaalamayaan waxa ay sarreen meelaha lagu kala goyn karo dealka meelaha maaragtay wax laga soo saaran karo yani dadka fahankooda trendiska meesha loo socdo ganacsada kasta intuu ka fahan badan yahay dadka ayuu kaga fiican yahay oo kaga hormaraya ganacsadaha kale haddaad soo fiirisana dhammaan ganacsatayaasha successful-ka waa dad aad u fahansan dadka ay u shaqeynayaan ama macaamiishooda ama clients-kooda serious u arkaan marka serious u arkaan arrin dhabay ka tahay kaftan ma aha wayna ilaalsadaan oo maartay ka taxadaraan laakiin ganacsatada aan dadka diiradda saarin oo aan dadka qiimeyn oo dadka xisaabsan oo dadka fahmin ganacsigooda waa laga yaabaa in wax ka helaan u shaqeeyo laakiin ganacsigooda ma baraaro meel fiican ma gaaro marar badanna waxaad arkaysaa qofka ganacsigiisu inuu si fudud isku xirayo sababtoo ah hadda clientskii ama macaamiishii cidba keer ma siin cidu ma fahmin yani maalinba laba si isu xanaajinaysa maxaa iga galay buu leeyahay isaga u taallaa maalinka laba kale isla xanaajinaysa maxaa iga galay marka dambe magaalada dhan iska soo xiraysa ilaa maxaa iga galay iyo isaga u taallaa ama ha gato ama ha qaato haddaa la soo istaagtay yani qofkan ma qof adiga kugu xiran ilma aad dhashayna ma waa qofkan kala ganacsanaysa yani sidaa darteed waxaa la rabaa inaad maaragtay aad fahantid dadka macaamilka dadka aad wanaajisid maaragtay trendiskooda behaviorkooda dabeecadahooda nidaamka waxyaabahaas oo dhan aad maaragtay aad daraasid ku samaysid insha Allah taa haddaad samaysid waxaa kuu fududaanaysa in maaragtay uu ku noqdo yani ganacsigaada ama hal abuurkaadu mid successful waxaan rajeynayaa in muuqaalkaas ku ahaa mid informative waa Engineer Abyad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.